aakhiro iyo adduun qofka gabadhaas la weydiinayo waa ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble farsamada lagu fuliyana alcadaala iska lahaa gacanta fulisayna mahad salaad waaye cidda dishayna waa al-shabaab nimadii 26 Juun muuqaal la faafiyay wuxuu muujinayaa gaari cad oo la xaqiijinayo in ay niisa leedahay in gabadhaas lagu qaaday madaxdii ka sarreysayna ay shaqo ugu yeereen hay'adda sida ehelka gabadhu ay sheegeen markaas ayaana rag iyo ruux ugu dambeysay waxaan ka xumahay gabadhaas kiiskeeda yani meelo far badan baa la marsiiyey habeenkaas aad sheegayso horta waddankaani ma joogin dalka waa ka maqnaa anigoo maqan bayna waxaa dhaheen haddii si aad ogolaato inaan si tafsiira kugu sheego waana markii u horreysay oo aan kiiskaas ka hadlahay gabadhaas allah u naxariisto mu'aamarad ajnabi iyo Soomaali isla sameeyeen waliba ay Soomaali samaysay baa lagu shirqoolay waxaana looga dan lahaa in hay'adda Soomaaliyeed magaceedana lagu dilo ayadana lagu dhibaateeyo shirqoolkaas dadkii sameeyay dawladda ka tirsan bay ahaayeen hadda rabtida magacyadooda waa ku sheegi karaa waxaan rabaa si faahfaahsan Fahad inaad iigu sharaxdid kiiska Ikraan من بلو من دماد أديكون حفظ قرنين مقعيات الدولة شخصياتك إلا سوق بلو إلا سوق دماد وحنا أهانا دقيست سؤالها كصباحة أنا أحكاوي وايه وما سنتهي أرتكيس كتداد أكتهي وحال الديدي وحتى النفط هذا خطر لو قليل ريبوت كهيئة أي كهيسو إني قولي أمنيك قرن كيسو ما ننتي الله مضلي إن قولها أمنيك قرنك la geeyo warbixintaas oo guddiga amniga qaranka la hordhigo waa maalinta aniga Djibouti leeyahay xiray oo nafteeda khatar la galiyay oo nolosheeda khatar la galiyay ayada mawduuceeda marka laga yaabo inaan ka sheekeysano hadda ma galay taas dantii laga lahaana waxay ahayd inaan xamar imaanin oo aan warbixintaas dhiibin taasoo kaliftay inaan dalka dib uga soo laabto oo diyaaradda la soo celiyay oo dib loogu soo celiyay meeshii aan ka imid horta waxay ku tusinaysaa dadka mu'aamarada gabadhaas sameeyay inaysan raali ka ahayn xogtaas inay baxdo laakiin maanta xogtii baan adiga ku siinaya fadal soo dhaw gabadhaas mu'aamaradeeda siday u bilaabatay ilaa u dhamaatay waxay shaqo u doonatay xafiiska ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble gabadha markay shaqo xafiiska u doonatay meeshii ay sugaysa in shaqo la siiyo baa dad mu'aamarad ajnabiyana ka shaqaynayay rabay dalka inay khalkhal geliyaan waxay u isticmaaleen gabadha nafteeda in khatar la geliyo nolosheeda khatar la geliyo mas'uuliyadda koowaadna qofka qaaday ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble waa gabadha maalinta gaariga lagu soo qaadayo waxaa loo ballamiyay wasiir ku-xigeenka warfaafinta alcadaala oo u kaxeeyo ku yiri ra'iisul wasaaraha shaqo ku siinayo maalmahaas ku noqnoqota xafiiska ra'iisul wasaaraha shaqo lagu siinaa lagu yiri ayadana shaqo raadis ahayd mar waxay ka fikirtay guddiga doorashada inay oo Hirshabeelle inay gasho mar waxay ka fikirtay inay xildhibaan Hirshabeelle noqoto haddana way iska daysay markii dambe xafiiska ra'iisul wasaaraha tir shaqo u doono sidii wax u dhaceen tafaasiisheeda inteeda badan ma raba hadda inaan galo laakiin intaan ku sheegi karo waxa waaye gabadhaas gaariga lagu qaaday nin la yiraahdo xildhibaana oo la yiraahdo mahad salaad oo hadda rabta feelkiisa mar kale aan furayno ama su'aalo kale ku furayno baa la kulansiiyay asaga gaari ku qaaday gaarigii baa laga qaaday waxa la geeyay Dar es Salaam xaafad la yiraahdo xamar ku taala oo dadka magaalada ugu ladan ay degan yihiin gurigaas laga qaaday waxa la marsiiyay Shabeellada hoose meel jilib u dhow baa la geeyay halkaas aan lagu dilay nin la yiraahdo mahad karatay oo madaxda shabaabka kamid ah operation ka fuliyay oo ay xiriir dhow leeyihiin mahad salaad ra'iisul wasaaruhuna aweer buu ahaa wuu ka warqabay dhibaatadaas in loo geysanayana wuu ka warqabay aakhiro iyo adduun qofka gabadhaas la weydiinayo waa ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble farsamada lagu fuliyana alcadaala iska lahaa gacanta fulisayna mahad salaad waaye cidda dishayna waa al-shabaab sidaas aan kugu sheegay qorshaheegu ahaa inaan guddiga amniga qaranka hortooda ka sheego laakiin